السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبان إذن سلامي ولا الله كحرن دار لبان أكاديمي. مقعي وعبد الرحمن حسين آدم. ما أنت عشر كوحو نقوم دونا conversation about our country وذا شيكيسي كسابسا دالكينا. As you know سلا أبتهاي there is a government وحاجة دولة in our country دالكينا. So سيدا أولي how do you see سيدا دوارتا Somali federal government دولة فدرال Somalia. Do you think ممالينيسا it's a good government inay tahay dowlad wanaagsan or ama do you think waxaad u malaynaysaa it's a bad government inay dowlad xun tahay? As you know sida og tahayba there is a government waxaa jirta dowlad in our country dalkeena. So sida aawadeed how do you see sida u aragtaa the Somali federal government dowladda federaalka Soomaaliya? Do you think ma u malaynaysaa it's a good government inay tahay dowlad wanaagsan or ama do you think waxaad u malaynaysaa it's a bad government inay tahay dowlad xun? Well, wanaag I can't say to you ma kuu dhihi karo it's a good government waa dowlad wanaagsan or ama it's a bad government so waa dowlad xun because maxaa yeelay it's a new government waa dowlad cusub. So sida awadeed we must give or inansin a chance fursad to know and ku ogaano what it is waxa ay tahay. Well, wanaag I can't say to you ma kuu dhihi karo it's a good government waa dowlad wanaagsan or ama it's a bad government mise waa dowlad xun because maxaa yeelay it's a new government waa dowlad cusub. So sida awadeed we must give waa inaan siina a chance fursad to know and ku ogaano what it is waxa ay tahay. As you know sida og tahayba the country dalka is in wuxuu ku jiraa a critical condition xaalad adag and there's no law ma jira wax sharci ah an order ay kala dambeyn. Moreover intaa waxaa dheer everybody ruux walba has a gun wuxuu haystaa qori. Therefore sida awadeed what sort of steps tallaabo noocee should the government dowladdu take ay qaadan kartaa in order si to restore ay u soo celiso peace nabad and instability iyo xasilooni? As you know sida og tahayba the country dalka is in wuxuu ku jiraa critical condition xaalad xun oo aad u adag and there is no law ma jiro wax sharci ah an order ay kala dambeyn. Moreover intaa waxaa dheer everybody ruux walba has a gun wuxuu haystaa qori. Therefore sida awadeed what sort of steps tallaabo noocee should the government dowladdu take ay qaadanaysaa in order si to restore ay u soo celiso peace nabad and instability iyo xasilooni? The government dowladdu shall find waa inay raadisaa the government dowladdu shall find waa inay raadisaa a way how to disarm ay hubka ugu dhigayso and disband ayna ku kala dirayso tribal militias militia beeleda. It must create jobs waxaa qasaba inay u abuurto shaqo for militias maleeshiyaadka and the government dowladdu shall start waa inay bilowdaa reconciliation heshiisiin among Somali clans ayna ka dhex bilowdo qabaa'ilada Soomaaliyeed in order si to get ay u hesho the support taageerada of the tribal leaders ee salaadiinta ama nabadoonnada
si ay ugu hesho taageero. The government dowladdu should find wa inay raadisa a way to disarm hubka dhigis and disband tribal militias iyo sida ay maleeshiya beeleeda ku kala diri lahayd. It must create wa inay abuurto jobs shaqooyin for maleeshiyaadka ugu horeyn waa inay shaqo u abuurto. And the government should start sidoo kale waa inay bilowdo reconciliation heshiisiin among Somali clans qabaa'ilada Soomaaliyeed inay dib u heshiisiin ka dhex bilowdo in order to get a u hesho the support taageerada of the tribal leaders odayaasha qabaa'ilada horjoogaha u ah ama hogaamiyaasha qabaa'ilada nabadoonada salaadiinta whatever you like waxa doonta dheh. Disarm waxa waaye hubka dhigis, disarm hubka dhigis, reconciliation heshiisiin. waa maasantiin akhyaarta ku xiran Daarul Iibaan Academy kulan dambe oo xiiso badan insha Allah. Assalaamu calaykum.